ciidankan ayaa lagu tababarayay duleedka garoonka diyaaradaha magaalada Beedhabo waxaana tababarkooda iska kaashaday midowga Yurub iyo howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee ka socda Afrika ee loo yaqaan AMISOM. saraakiil ka socday dawladda Ingiriiska ayaa ciidamada muddo 8 bilood ah tababarka siinayay. Lieutenant Colonel Andy Downby oo ah madaxa tababarka saraakiisha ka socday dawladda Ingiriiska ee carbinayay askartani ayaa warfaafinta u sheegay in ciidamadani ay yihiin kuwa si fiican loo tababaray oo leh xirfad dagaal ay isaga dhicin karaan cadawgooda sida Al-Shabaab oo kale. waa ciidamo lagu kalsoonaan karo ayuu yiri oo ay u aayi doonaan dawladda Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka. dawladda Soomaaliyeed waxayna ka mid noqon doonaan ciidamada qaranka ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna u noqon doonaan udub dhexaad ayuu yiri Andy Downby oo ka mid ah ciidamada Ingiriiska ee muddada ka howlana arbiyeynta askartan. Transition and phase 1 of transition, which hopefully will involve 60 Division, and we have capacity and capability. So we are growing a number of soldiers and officers for the last 500 of them. We will help with the transition plan, and we will help the 60 Division be much more capable. The soldiers we have trained since January 2017 have been very professional. They're very good soldiers. They come from the line, they have worked and operated under operations, and we come here and we train them to make them one day a collective unit that can defeat Al-Shabaab and obviously help with transition. kamid ah askarta ayaa la guddoonsiiyay shahaado sharaf ay ku mutaysteen dadaalkoodii intii uu tababarka socday. gaashaanle sare Ismaaciil Khaliif Shire oo ka mid ah qaybta 6aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka hadlay munaasabadda tababarka lagu soo xiriyay ayaa ciidamada uga sheekeeyay taariikhdii ay lahaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed bariisamaadkii. maanta meeshaan anagu baasi dhignay waxa uu imaan lahaydeen ciidamada dabaaboodkooda diyaaradooda iyo badooda iyo cirkooda iyo dhulkooda laakiin wax kasta waa la gaari doonaa. annaga kaliya maaha burburka meelo badan buu ka dhacay haddana waa laga soo kamay haddana waa ka soo kamaynaa sida jirta. waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa madaxdanada ciidamada oo ayakana maartay si gooni ah arrimahaas ayaka ugu dadaalayo ha ahaato taliyo xoog ha ahaado taliyo qayb ha ahaado abaaduliyaashiisa intaasba waxa weeye amaamirtan ayaka iska leh dadka wax lagu baraayo annaga madaxweyne wasiirka warfaafinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed oo ku hadlayay magaca dawlad goboleedka ayaa marka horeba mahadcelin u soo jeediyay dhammaan qaybihii ka qayb qaatay laylinta askartan ee waqtiga qaatay iyo sidii ay dhabar adeeg ugu yeesheen muddadii uu tababarka socday. soo socota biidnillaahi tacaala inuu ku dayan doono ragga maanta shahaadooyinka la siiyay. dawladnimadeenu markii ay burburtay waxyaabaha ugu weyn oo naga burburo waxay ahaayeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo qaybahooda kala duwan intaba waa ay naga burbureen. hase yeeshee dawladda Soomaaliyeed siyaasadeeda dhaqaalaheeda iyo amnigeeda iyo ciidankeedu intaan ognahay tartiib ayuu u soo kabanayaa. waxaan rajaynaynaa biidnillaahi tacaala Soomaaliya inay ku noqoto sideedii hore geeska Afrikana magac weyn baan ku lahayn Ilaahay magaceena noo soo celiyo. ciidamadeenuna ay noqdaan kuwa har iyo habeen la dagaalama shabaab difaacana mustaqbalka dalkooda. mar labaad iyo mar saddexaad saraakiishan quruxda badan waan ognahay intaasoo mayl inay ka soo gudbeen hadday bad tahay iyo hadday bari tahayba u yimid Soomaaliya inay caawiyaan gaar ahaanna qaybta 6aad militariga jooga inay gacan siiyaan hadday tahay tababarada iyo hadday tahay logistikada inta ay ka caawin karaan ayagana waa ugu mahadcelinaynaa dawladda UK shacabkeeda iyo dawladda. askarta tababarka loo soo xiray ayaa soo bandhigay gaadha ka ciyaar ay ku muujinayeen cududooda military iyo xirfadda ciidan waxayna tababarayaashii laylinayay sheegeen in ay yihiin ciidan lagu kalsoon yahay oo amniga dalka lagu halayn karo marka loo dhameystiro saanadooda military.